gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama Muumin Gadiid Cumar ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ay uga hawlgalaan khilaafaadka dhinaca dhulka ee dadweynaha soo kala dhaxgala dhulku horta sidiisa uu iska warbaday wax weeyaan mashruuca ugu weyn ee wadanka waa dhul asaha imika sidii waayay waxa maanta ma hayo aad u hooseeya xaqiiqo markaan sheego isqaadsiga dhulku marba ay dudoosa ay saaw ciidooda ay buux jirto maanta wax jooga kisa ma jirto inta badan waxa wada guddi baa lisa guddi zaraao khilaafaadka iyo xaskiyo xalinta dhulka ay jirto oo walaal danka waxay soo go'aansan guddi filan baa ay kala u filan gudoomiye waxa jira go'aano dhul aad ka soo saarteen oo dadkii lahaa loo qoro maxkamaduna ay cadeysay ilaa imigana aan loo fulin iyo kuwo meeshoodii iyagoo iska lahaa dad kale waraaqa lamida ay ula yimaadeen oo idinkuna ilaa iyo imiga aanadi kala saarin markaa guddiga khilaafaadka ee dhulka ee jeegisa hoose arrimahaasi tiraynta leg bay wax ka qabteen horta waxa weeye dhulku waxa weeyaan anagu horta dhul sharci hore oo sharci damacsanayn ma jirto meesha marka qofka awlaha meeshaas aan leeyahay waxa loo diraa nuutra iyo xildhibaana oo waaxda ku qorma qadra way soo xaqiijiyaan gudida xaqiijintaada way soo xaqiijiyaan meesha waxa la weydiiyaa jaarka afar saddex xiga ayaa la weydiiyaa meesha ayaa la ninkaas leeyahay hawlaha heel baaha tabiid xaqiijiyaa marka foom la soo buuxiya foom ka la soo buuxiyo yaa lagu saaran ugu sharciyeeyo jumalka yani qadil aqoonshada ugu jira meeshii hada ku jirna waa jooshinaa oo meesha ku jirna sharciga ma soo waxaan soo dadaalaa runtii inta soo dildoosa bayaan baa ogeedeen iska fadhiyo oo isqaasi xagga maamulka jiray tiwa xallo dhameeyo waa ilaahay hadii waa maanta waqti fata subhanahu wa ta'ala marka xalluka khilaafaadka sinimka aad weeri oo runtii sabab dawladda la soo magacaabay gudoomiye ku-xigeen ka waran intaan leeg bad kalsooni ka qabtaan in hawlihii fadhiistay dadajin doono ninka leeyahay waa araga waa aad soo shaqeyn jiray ilaa dawladda Soomaaliya soo shaqeyn jiray aad baa kasoo bixin qodnaa in hawsha si fiican u qabaan gudoomiye waxa tiri ma hayno laba sharciyo meel kale ka soo wada baxay ma hayno waxa jiro oo la cadeynaya oo maalintii gudoomiye walaha deegaanka uu joojiyay halkan gurigan kaalma leedahay in laba qolo ay isku qabsadeen oo uu mid ka mid yahay cigad oo laba sharci wada haya marka mid baa lagu joojiyo qoladii kale la siiyay marka arrintaas oo kale miyeen mas'uuliyadda inaad baadhaan idinku arrinada xilsaarintii Soomaaliya waliba adigoo si gaar ah u qabisan dawladda hoose anigu markii ugu horeysay oo aan waafaqka maqlayo in aan adiga afilka maqlayo oo wali xisooyi doon arkayo fahmi jirto hadii ay wada dhacdaba way difaacdo fayro hore lahayo dawladda Soomaaliya oo sameeyay dadkii ahay ay maqlaayeen ama la maqlaayeen ama lumay way jirta oo marka qofkii guddiga xaqiiqtiisa meesha wada ay soo eegto ay dadkii marka dadweynaha soo eegto deedayaho heel barkaas joogaa la leeyahay wali soo sameeyay oo marda qof marka qofta fadhiyo way kartaa maxay ka qorshaysan marka kuwa noocaas inaad wax kaga qabato waxaan dhulkii ugu yaraado waxaan loo qorshaysan hadday dhacdo inuu fayl ka hor meesha aw lahaayo oo dawladda hore ay sameeyay awliha oo cadaato ka dambeeya ka tahay oo ka hadlo waxa jira waraqadahan ismidka qofba wanayo ama ma saxay jisto xastay oo juwan oo jirnimadiina isla xafiisiina ka jiray waana waraqadaha oo soo hadii ay jirto kuwa deegaanka maxaa ka qabanayeen koox وحوي الأرض هذا ما كان ماشي شرعي ما أنا شرعي هذا ما هو ماشي شرعي له فايل له أرض الوجه لا ما بناه وفعل هي الأرض الوجه هاي فايل كل يوم ما بعد جوده وكركادين كل شيء